dalkani koonfur afrika oo ah dal dadka ku dhaqani ay ku kala duwan yihiin diinta dhaqanka midabka iyo luqadaha ayaa dowladda iyo hay-adaha maxalliga waxa ay qabtaan barnaamijyo lagu dhiirigelinayo isdhexgalka bulshada si loo yareeyo jinsi nacaybka iyo weerarada lagu qaado shisheeyaha. caaisha waa gabar u dhalatay dalkani waxaana saameyn ku yeeshay barnaamijkan sanad walba lagu qabto xaafadda soomaalida. waan la dhacsanahay barnaamijka isdhexgalka, waxaan ka mid ahay dadka uu saameeyey, waan islaamay, waxaana hadda la shaqeeyaa soomaalida, saygayguna waa soomaali. aad ayaan ugu faraxsanahay noloshani. ardayda jaamicadaha ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya, warbaahintuna si toosa ayay u tabinaysaa. idaacadda KFM ayaanu ka soconnaa, sidaad arkayso toos ayaanu u tabinaynaa. waa hawl adag sidii la isugu dhafi lahay bulsho kala qoqoban oo wax walba ku kala gedisan. haddaynu nahay ardayda jaamicadaha si mutadawacnimaha ayaan uga qayb qaadanaynaa barnaamijkani isdhexgalka ah. idinkuna waad mahadsantihiin sida aad u dhiirigelinaysaan isdhexgalka bulshooyinka. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa maxamed axmed afrax. maanta waxaan ka soo qayb galay bandhig faneedkan lagu magacaabo Open Street ama wadada furan, kaasoo lagu qabto sanadkiiba hal mar bilahan oo kale magaaladan Cape Town. marka waa wax aad u fiican, waxaan uga soo qayb galay inaan dhaqankaygu muujiyo aniga. barnaamijku waa soo dhaweynayna isdhexgalka bulshada sanadkeeda mar baa la qabtaa, marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay isdhexgalka bulshada. marka maadaama soo afka ku noolahay, marka aad baan usii diyaarinay, aad baan ugu faraxsanahay isdhexgalka bulshada. waxaan aad iyo aad mataqaana ugu faraxsanahay nasiibka uu soo gaarsiiyey xilli ay South Africaanka ama dadka leeyahay Koonfur Afrikaanku ay danaynayaan isdhexgalka bulshada oo ay wadooyin maanta u xireen oo baaskiilo lagu wada marahayo oo mataqaana la isku salaamahayo. barnaamijka isdhexgalka bulshooyinka ayaa lagu soo bandhigaa ciyaaro kala gedisan iyadoo Soomaalida ku dhaqan dalkani ay si weyn uga qayb qaadato. Cabdiraxmaan Al Ruuxi, telefishinka caalamiga Cable TV, Cape Town, Koonfur Afrika.